Falastiiniyiintu rajo weyn ayay ka qabaan maamulka Biden. Falastiiniyiinta ayaa shaki ku sii jira iyada oo madaxweynaha la doortay Joe Biden uu isku diyaarinayo inuu hoyga ka dhigto aqalka cad. Doorashadii madaxweynenimada Mareykanka ee rabshadaha badan dhalisay ayaa ugu dambeyn muujisay guuleystaha loo maleynayay inuu dhammaadkii usbuucan ahaa Joe Biden iyo saaxiibadiisa dhanka siyaasadda ee Kamala Harris oo iyadana horaanba xilkeeda miisku saarnaa, iyadoo ay jirto eedeymo aan la caddayn oo musuqmaasuq ah oo inta badan uu taageerayay madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Donald Trump. Natiijooyinka ayaa ahaa kuwo lagu qanci karo. In ka badan 75 milyan oo codbixiyayaal ayaa taageeray Biden. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira weli 71 milyan oo codbixiyayaal oo uu madax maray Trumpism-ka, iyaga oo taageeraya madaxweynaha xilka haya tiro aad uga badan xitaa 2016. Way fududahay in la arko sababta dad badani u aaminsan yihiin inuu isbedel dhab ah ku imaan doono dhammaan mashaariicdii uu horay Trump u fuliyay kuwooda qabyada ah. Ujeedada mawduuca aan guda galo, waxaan filayaa inaad ila fahansan tahay inaan u socdo dhanka eexashadii Mareykanka uu ka galay reer Falastiin iyo damiir la'aanta wadamo badan oo Islaam ah. Biden ayaa horaanba sheegay inuu ka bixi doono dhammaan heshiisyadii Trump uu galay, kana qaadi doono cunaqabataynta wadamada Islaamka ee uu xayiraadda dhanka safarada uu saaray Trump. Taasi micnaheeda ma ahayn inuu dhammaan wax kama jiraan ka dhigi karo heshiisyadii, maxaa yeelay go'aan gaaridda iyo fulinta kaligiis ma lahan ee labada aqal ayay wax waliba ka fulaan. Dhanka Israel, Biden iyo Harris waxay caddeeyeen inay yihiin kuwo si adag oo aan leexleexad lahayn u taageeri doona gobolka, taas oo micnaheedu yahay inay taageeri doonaan danaha Israel. Sanadkii 1986, isaga oo la hadlay xildhibaanada Mareykanka, senatarka Biden ee xilligaasi wuxuu yiri, taageerada Mareykanka ee Israel waa tan ugu wanaagsan ee $3 bilyan oo maalgashi aan samayno, isagoo ula jeeday kaalmada sanadlaha ah ee Washington ay siin jirtay Israel sanad walba. Biden oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray, haddii aysan jiri lahayn Israel, Mareykanka wuxuu ku qasbanaan lahaa inuu hindiso Israel cusub si uu u ilaaliyo danaha uu ka leeyahay gobolka. Intii lagu guda jiray maalmihii ugu dambeeyay ee xafiiska maamulka Obama oo uu ku-xigeen u ahaa Biden, hogaamiyaha dimuqraadiga wuxuu ogolaaday $3.8 bilyan oo gargaar ah Israel sanad kasta in la siiyo muddo 10 sano ah. Trump ayaa cusboonaysiiyay ansixinta heshiiskaasi. Haddaba maxay ku kala duwan yihiin Obama iyo Trump marka loo eego danaha reer Falastiin iyo kuwa Islaamka? Ujeedka iyo taageerada Trump waxay ahayd mid cad oo gabasho aan lahayn, halka Obama uu ahaa mid dusha ka qabo muujiyana dhexdhexaadnimo balse hoosta ka fushada danihiisa. 31 dal oo xubno ka ahaa qaramada midoobay may aqoonsanayn Israel. 16 xubnood oo ka socda jaamacadda Carabta sida Algeria, Comoros, Djibouti, Ciraaq, Kuwait, Lebanon, Libiya, Mauritania, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Soomaaliya, Suuriya, Tunisia iyo Yemen. 10 xubnood oo kale oo ka tirsan ururka iskaashiga caalamiga ahna waxaa ka mid ah Afghanistan, Bangladesh iyo Brunei. Haddaba waxaa jira wadamo aan soo sheegnay inay qaarkood soo celiyeen xiriirka Israel, dalna u aqoonsadeen, halka kuwo kaloo badan ay dhexda ku soo jiraan. Inta ugu badan wadamada Carabta ee Trump ku qasbay inay xiriir dhow la yeeshaan ayaa lagu qanciyay: 1. Aqoonsiga Israel wadan inay tahay. 2. Inay samaystaan midowga shaambuur oo khaliijka u dhan yahay si looga hortago awoodda sii kordhaysa Iiraan iyo Turkiga ee gobolka. Haddaba adigoo wax badan ka fahmay mawduuca, ma kula tahay wadamadaas in ay sidii tusbax furtay u kala daadan doonaan maadaama Trump uu galbaday?